ciidamada nabadgelyada wadooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaashanaya hay'adaha kala duwan ee ammaanka ayaa saaka hakad geliyay shaqooyinka gaadiidka booyadaha biyaha ka soo dhaamiya ceelasha Arabsiyo sidoo kalena xidhay darawaliinta gaadiidkaasi. Tallaabadan ay ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland qaadeen ayaa ka dambeysay kadib markii xalay la sheegay in mid ka mid ah gaadiidleyda booyaduhu uu jidka isku xidha Hargeysa iyo Arabsiyo uu ku jiray qofkaas oo ka baxsaday goobta, waxaana la raadinayaa booyadii iyo darawalkii falkaas arxan darrada geystay. mushaqawaatanu kali iyo murugo ciilkeed ruuxii meel fogaa jira umaan ku raaci mushaqawaatanu kali iyo murugo ciilkeed ruuxii meel fogaa jira umaan ku raaci قرنكي